Waa hooyo waxay maalin walba qoyskeeda u samaysaa cuntada. Wixii cuntada ka soo hadha ama dheeraad ku noqda ayay daaqadda u saartaa si masaakiintu u qaadato. Waxaa maalin walba qaata cuntadaas nin miskiin ah oo aad u baahan, isla markaana naafo ah oo tuur leh. Ninkaasi marka uu cuntada qaadanayo, islaanta uma mahadceliyo ee hadallo xunxun oo ay dhibsato ayuu yidhaahdaa. Islaantii arrintaa muddo markii ninkaasi ay cuntadii siinaysay, sidiina uu hadalladii xumaa u odhanayay, ayay aad u dhibsatay. Maalintii dambe ayay waxay go'aansatay in ay sun u mariso cuntada ay meesha u dhigto. Markiiba sun ayay u marisay, laakiin markii ay istiri meesha saar ayay Ilaahay xasuusatay subxaanahu wa tacaala. Sidaas ayayna ku toobad keentay. Cuntadii sunta lahaydna way gubtay, kadibna waxay u saartay mid aad uga wanaagsan tii ay hore ugu saari jirtay, iyadoo aad uga murugoonaysa xumaanta ay ku kici gaadhay. Maalintii ay sidaasi samaysay ayaa galabnimadii albaabka gurigeeda lagu soo garaacay. Waxaana jiray wiil ay dhashay oo ka maqnaa oo ay aad uga murugoon jirtay maqnaanshihiisa. Markii ay ka furtay albaabka, waxay la kulantay wiilkeedii maqnaa oo bannaanka taagan, isla markaana aad u diifaysan, laakiin roodhi gacanta ku haysta, gaajada haysa awgeedna cunaya. Markii ay guriga soo gelisay ee ay wareysatay, waxa uu ku yidhi, hooyo, haddii aanu nin miskiin ah oo tuur lihi isiin lahayn cuntadan, guriga maba soo gaadheen. Way dhadhamisay, mise waaba tii ay iyadu samaysay. Waxay xasuusatay in haddii ay u dhigi lahayd roodhidii ama cuntadii sunta lahayd, in uu wiilkeedu noqon lahaa ka cuna ee ku dhinta. Sheekadan waxayna tusaysaa in mar walba aynu wanaagga ka shaqayno, laga yaabo dhibaatada aynu galnaa inay inaga inagu soo noqoto, isla markaana aynaan abaal iyo mahadnaq ka sugin haddii aynu wanaagga u galno.